komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in 15 bisha labaad 2021 ay guud ahaanba Soomaaliland ka bilaabmi doonto in degmo doorasho bedel loo sameeyo dhammaanba dadkii iyagu ka soo guuray goobahoodii hore. sidoo kale komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in dadkii kaarka codbixinta qaatay 2016 iyagana loo sameyn doono shahaado caddeyn ah oo ay ku codeeyaan maalinta codbixinta. kulan ay maanta isugu yimaadeen xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland dhammaanba guddida komishanka doorashooyinka ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac waxaanu sidoo kale u mahadnaqay dhammaanba beesha caalamka iyo sidoo kale asxaabta qaranka iyo guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland sidii habsamida lahayd ay u qaateen kaararka diiwaangelinta codbixiyayaasha. hadaladiisina waxa kamid ahaa komishanka doorashooyinka qaranku sida lala socdo wuxuu soo kordhiyay adeeg runtii ah in dadka muddadii 2016 ka dambeysay reer Soomaaliland ee guurguuray ee magaalooyinka u kala guuray in fursad la siiyo ay ku bedeshaan deegaankooda. marka bisha 15 waxa la furi doonaa kaad bedelkii oo ah degmo ilaa degmo. dadkii aanay ka khaldamin qofna degmada gudaheeda kama bedelan karo laakiin degmo ilaa degmo 23 degmo ee dalka ayay u kala bedelan karaan. waa inuu joogaa degmada uu runtii u bedelanayo sababtu waxa weeye annaga iyo ummadda iyo ilaahayba qofku wuxuu sheegayaa inuu soo guuray oo ka soo guuray degmadii oo degmada degan yahay marka inuu degmada u bedelanayo joogo weeye. goobta shaqadu ka socoto inuu tago oo uu yidhaaho goob heblaan doonaya kaarka in lay bedelo degmo heblo layga soo bedelo degmadan lay bedelo goobta numberka ama magacaalena laygu qoro ayuu inanka ku odhanaya. waxaa kaloo iyana jirta in dadka kaararku ka lumeen oo in badani ay kaararkoodii ka lumeen. marka komishanku iyana wuxuu u sameeyey inay kaar bedel helaan oo shahaado ay ku codeeyaan la siiyo oo halkii kaarka u gelaysa. iyaguna waxay caddaynayaan in kaarkii lumay. siyaabo badan oo wax loo caddeeyaa jira. marka ta ugu muhiimsan ee uu komishanku dee qaban karaa hadda gaari karaa waxa weeye inuu qofka dee dhaar ku aamino oo qofkaas uu ku dhaarto inuu kaarkiisi lumay. markaa waa loo bedelayaa. shuruudaha haddaba labadaba looga baahan yahay labada oo ah goobedel oo ah degmo iyo degmo ama degmo ilaa degmo iyo kaar bedel oo ah qof kaarkii ka lumay oo meeshiisii ama isla degmadiisii meesha ay ka taallo tegaya oo codsanaya in kaar la siiyo isagana loogu qori doono halkiisa. haddaba shuruudaha laga doonayo labadaa qof waxay yihiin waa inuu joogaa degmada doorashada uu rabo inuu u bedesho oo aanu joogin tii uu ka soo guuray tii uu soo guuray uu joogo. waa inuu tago xarunta ugu dhow ee shaqadaas ka socoto. waa inuu soo qaato kaarkiisii hore si looga bedelo kaarkaas. waa inuu buuxiyo foomka codsiga yaalla goobta ee inamadu hayaan. waa inuu caddeeyo sababta uu degmada cusub ugu soo guuray. marka iyaduna de waxa weeye intaasoo shuruudood waa laga rabaa inuu goobta la tago weeye. shuruudaha looga baahan yahay qofka kaarku ka lumay waa inuu yimaado xarunta ugu dhow ee degmadiisa ee shaqadu ka socoto. waa inuu buuxiyo foomka codsiga ee in kaarkii ka lumay. waa inuu ku dhaarto inuu kaarkaas ka lumay aanu haysan. marka sidaa darteed waxaanu bulshada ku wargelinaynaa bisha 15 bishan labaad 15 inay ka bilaabmi doonto 120 goobood oo dalka ku yaala. runtii markii hore waxay degmooyinka qura laga qabto laakiin komishanku markuu eegay baaxadda iyo dhulku intuu isu jirjiro tiradii waa la kordhiyey aad baa loo kordhiyey iyadoo xuduudaha waliba si gaar ah loo eegay. marka 120 goobood bay ka qabsoomi doontaa. muddada ay hawshaas soconayso
waa 10 casho oo goob kasta ay ooleyso iyo 4 casho dheeriya oo ay ooli doonto 6 caasimadood ama 6 degmo ee caasimadaha ku yaala marka sidaa ha loola socdo waxa muhiim ah inaan iyadana iclaamino dadkii la diiwaan geliyay 2020 iyo 2021 inaanay iyagu horta marka hore kaadh ba haysanay bedelaan oo kaadh ba lama siinin kaadhkooda way iman doonaan ama kaadh ka lumay oo ay bedeshaanba aanu jirin kuwa qolada degmo ama goob bedelkana inaanay ka mid ahayn waa Boqor Axmed Cabdi 5TV Hargeysa